ninka maanta la dhaxmaraya waa in halkiisa kow anigu haddaan helayo oon maxay hay'ad heliye kaasoo kale kooban kaga siina fanaanada caanka ah ee Sahra Halgan sidoo kalena ah mujaahidad door muhiim ah ka soo qaadatay xorriyadii iyo madax banaanidii Somaliland oo maanta waraysi gaar ah telefishinka Ariel ku siinisay hoteelkeeda Hidadhowr ee magaalada Hargeysa ayaa si adag uga hadashay dadyoga calanka Soomaaliya ku dhexdha deegaanada Somaliland waxaana xukuumadda Somaliland iyo shacabka u soo jeedisay in arintaasi go'aan adag laga qaato qofka maanta Somaliland jooga ee calanka xidha waa qof u jeeda dambi waa qof nacayb u jeeda waa qof inuu wax isku diro u jeeda waa qof doonaya inuu naftiisa ku haligo meesha laakiin oo de magac doonaya dadku waxay nagu batay dadkii magac doonayay ummadan calankan yar maradan yar u xidhay xanuunka iyo dibka iyo dhibaatada ay soo marisay ummadan oo degan oo meesheedii ku badqabtay ay ku rogtay ka soo xidhay dreyskana anigu waxa loo lahaa wali dadka waxa ku jira wanaag ba ku jira inaan laba soo gaarin inaan askartu soo gaarin in halkiis awal waxa la islahaa yaani ummadu sharciga gacanta ku qaadan laakiin markay noqoto ina yaro aabihii iyo hooyadii iyo dadkiisii oo dhan ku madheen calanka oo aaminsanaa awgeed hadii meesha lagu toogto qofka oo madaxa lagu toogto ama dhagax lagu dilo inaan qofkaasi ma inaan cidna loo qabsan karin ninka maanta inta Soomaaliland soo dhaxtaago calanka ku dhex waa in dadkaasi ay ka caagaan inay xidhaan waayo waxa jooga dad aabahood ku dhintay oo walaalkood ku dhintay oo calanka hoostiisa oo ehel iyo asxaab iyo cid walba ku waayay kaas haddii inta soo qaato madaxa ka toogto magmale qofkaasi hana ogaadaan kuwa soo xidhanaya maalinka maanta laga bilaabo markaad soo xidhato u diyaar garow in kow lagaaga siinayo oo ay joogaan kuwii aabiyo hooyaba ku waayay dad badan ba xamar ka yimaada fanaaniin badan ba xamar ka yimaada ummad badan ba degan oo koonfur ka timid shicibaa oo on siyaasi ahayn oo siyaasada ku dhex jirin laakiin ninka Hargeysa iyo Gabiley iyo Berbera iyo Boorama iyo Somaliland oo dhanba ku xidhanaya calanka Soomaaliya waa nin xunaan u jeeda waana la iska celinaya geesta kale Sahra Halgan waxay si gaar ah ula hadashay bahda fanka oo ay ka mid tahay waxaana talooyin u soo jeedisay fanaaniinta ka soo heesa magaalada Muqdisho ee ka soo jeeda Somaliland fanaaniin badan oo iyaga kamid ah inoo timaado inoo heesta fanaaniinteenu markay halka tagaan dibka jira waxa weeyaan waabay ooyayaanba hadda baroora waxa weeyaan anagu dalkan waanu tabcaynaa waxaan ugu tabcaynaa fan laakiin marka fankaagii laga dhigo mid hunguri lagu doonto qof mid waliba xamar buu tagayaayo u barooranayaayo waxaad muddaa inay ka siman yihiin koonfuri maxay ahayd muxaafid iyo macaarib nacaybka Somaliland nacaybka ummadan inay ka siman yihiin haddaanay ka sinayn nin ummad dhan oo wax ka tabanaysa caayaya mid soo dhaweyn lahay ku calan xidhay oo maalinna meel ku dhashay maalintii kale Hargeysa ku dhashay ayuu soo sawiraya madaxweyne dhan soo sawiraya fanaanada caanka ah ee Sahra Halgan hadalkeeda way sii wadatay waxay sidoo kale ka hadashay qodobkii isdhexgalka ee lagu soo ansixiyay shirkii wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya ee ka dhacay Djibouti waxaana xustay in madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aan dalka looga baqayn madaxweyne Muuse Biixi looga baqi maayo Somaliland adnana looga baqi maayo looga wareeri maayo Somaliland inta kale wasiireen la socotay madaxda la socotayna Siciid Sulba waa kii hadlayay yidhi waanu ku kala kacnay maanta nin Somaliland looga baqaya gudida kuma jirin ee dadkeenan ma aragtay ee laab la kaca ma fahantay imika ba umadu isdhex socota laakiin ragaan ajandaba la iman waxba la iman waxba ku soo talagelin oo markay meeshii yimaadeen yidhi war dadkan maxay nacib yihiin soo isdhexgalka maaha حاجة سياسة أنت هاسون أينو دقنو شو شركة لو كلا كعو ورثوا أنت هاسون هل فهم سهرة هالجن أنت عن ورئيس كان كوجودة شرتي وحكى هذا الشيء حرير كعصب أوبلا وماي والضمادة Somaliland إيه تايوان والله بضبح والضمان لا قنصن تايوان وحن تجي 6 سنة كهر وحن جي دوكيومنتري Somaliland كان سيدي أفرتال منتها ده بدأنا دوكيومنتري جالس يروح كترتشنا فرنسيس يو محي هيديان يا China أيو كترتشنا إن مركا waxaan aad ugu faraxsanahay
maalintii documentary-ga daawadeen dadkii daawanayay ooyay waxay dhibka annagana haysta Soomaaliland hadaan nahay Taiwan nahay ayaa idinkana idin haysa waa 3 sano ka hor marka hadii maanta lagu guuleystay waxaan leeyahay aad baan ugu faraxsanahay waa dad wanaagsan dad wax horumar samaystay weeyaan dad wax bartay weeyaan waxa weeyaan inaynu boqcada yareen la aqoonsanayn ku dayano inuu iska dayno reehebel Liban Usman Ali television Karial Hargeysa